soo dhawaada barnaamijkeena faham maanta waxaan ku soo qaadanaynaa sheeko ku saabsan cilmi baaris dhawaan laga sameeyay dalka Ingiriiska isla markaasina lagu sameeyay ragga doobka ah iyo qaabka nadaafadda sariirtooda sahankan cilmi baariseed ayaa waxa lagu sameeyay in ka badan 2250 kamid ah ragga qaangaarka ah isla markaasina ku jira xaaladda doobnimada waxayna uga warbixiyeen qaabka ay gogosha u nadiifiyaan sheekada kale ee la yaab kale ayaa ah in sahanka lagu ogaaday in ragga doobka ah ay ka liitaan dumarka marka ay timaado gogosha iyo nadaafadeeda isla markaasina warbixintu ay xustay inaanay kala jeclayn ragga qaar ayaa ay warbixinta cilmi baaristu xustay in 12% ay qireen inay bedelaan gogoshooda marka ay xusuustaan taasoo ka dhigan inay iska ilaawaanba bal dumarku iyaguna waa sidee sahanka cusub ayaa lagu ogaaday dumarka doobka ah ee aan guursan in marar badan ay bedelaan go'a sariirta laakiin 62% ayaa iyaguna ay sheegeen in faraashka ay bedelaan labadii toddobaadba mar haddii doobku uu sidaa yahay bal waa sidee xaaladda lamaanayaasha ama dadka isqaba lamaanayaasha lagu waraystay sahanka cusub ayaa sheegay in gogosha saaran sariirta ay bedelaan 3 toddobaadba mar sidoo kale kuwa kale oo tiradooda lagu sheegay 27% ayaa sheegay inay nadiifiyaan bishiiba hal mar haddaba mar laga hadlayay sababaha arrinta ka dambeeya iyo in cilmi baarista la sameeyo ayaa lagu sheegay inaan la rabin in go'a sariirta saaran uusan jeexmin oo marar badan la dhaqo taas oo nadaafad ahaan aad u wanaagsan sidoo kale sababaha kale ayaa lagu ogaaday sahanka oo ah in dalka Ingiriiska aad loo neceb yahay dharmeedhista oo ka mid ah hawlaha guryaha oo dadku maba rabaan in dharka ay meydhaan ugu dambeyn shirkadda samaysay cilmi baaristan oo ka shaqaysa arrimaha qoyska iyo sidoo kale nolosha bini'aadamka arrimaha la xidhiidha ayaa ku boorisay in ay wanaagsan tahay in lagu dadaalo habka nadaafadda gogosha oo ay wanaagsan tahay in la bedelo go'a firaashka toddobaadkiiba mar maadaama jirka bini'aadamku uu bannaanka u soo saaro maadooyin wasakh ah taasoo u baahan in qof walba uu iska nadiifiyo haddaba daawade adigu imise jeer ayaad beddeshaa waa su'aasha ay ku soo gabagabaysa warbixintu